السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد أفتي ميديا برودكشن هدي أتفضل كعصب تاي channel كان سبسكرايب صار notification بيرك تعاو سيادون نقطة مرة دعوة وهراء أو فرصة مقالة هالكلام صادق. كنتي channel كاميرا بحوه حضر لنا أرمى خصيو مقالة مندرة وحيابا حساسي قمر كاس كتاعن. ما أنتوا حجرب كي جفديو وواس كي جامرنا ساحب كي جا حسن بركان. runtii asagana ku xil leer arimaha mandheera inuu aad iyo aad u falanqeeyo bisna uu ka hadlo maantana barnaamijkan waxa uu wacday inaan uga hadalno dhacdadii shalay ka dhacday magaalada mandheera oo ku saabsaneed in dhaqtariintii kuubiyaanka ahaa oo laga afduubtay magaalada dhexdeeda runtii horta taas waxaan ku tilmaamayaa waa arrin aad iyo aad u foolxun oo in magaalada dhexdeeda la yimaado dhaqtariin macnaa loo targalay in amaankooda la sugo oo laba askari kaliya hawadati in halkaas lagu afduubto oo hadina ayagoo waxba dibba aan la kulmin lagala baxo wadanka ama magaalada lagala baxo dhanka Soomaaliya oo soo baxo oo wax aad iyo aad aan u cambaaraynayno ayadoo aan ognahay in madax kala duwan iyo dadka bulshada rayidka dhamaan ay ka wada hadleen xasanna maanta birkaan waxaan ugu waa in arrintaas wax yar aan ka falanqeyno oo ku saabsan arrimaha amniga magaalada Mandheera hay ku soo dhawo صاحب برضو ما حسنت هاي سوى نكسن وان كاغا محد علنا ساغلت iyo yeertay waxa kale tan rabaa inaan ku weysiyo magaalada Mandheera taas ka hor wax badan baa ka horeeyay waxa ka horeeyay in macallimiintii wadankaas wax bareysay meeshaas ay joogayaan oo cabsi awgeed ay ugu cararaan oo hadda dadkii wax barasho la'aan ay ku dhacday tan labaad jiidkii la soo mari waayo meeshii jiidkii la mari waayo cabsi awgeed tan saddexaad hadda wax barasho lagu caafimaadka lagu fiicnaa caafimaadkan hadda loo yimaado caafimaad aan soo jirin marka bulsho aan caafimaad helaynin wax barasho aan helaynin aan dhaqdhaqaaq helaynin oo jiidkii amar karin taas waxay ku tusinaysaa in meeshaas nolol ay ka baxdo taas waa si guud oo kale sax horta waxaan diirad saaraynaa dhacdada shil magaalada ka dhacday zayd in macnaa dhaqtariin ajnabi ah oo wadan kale kaaga yimaaday oo halkaas caafimaad oo marti ku ah in amaankooda aad sugayso oo magaalada dhexdeeda maalin cad laga afduubto maxay matalaysaa taas waxay matalaysaa in adiga aad dadkaas horta mar hore mas'uuliyad weyn aad siinin waayo nimankaas dhaqaatiirta waxa la rabaa maadaama ay marti yihiin in si fiican loo marti sooro amnigoodana la sugo meel fiican alxamdulillah ay ilaahay baa ilaalin kara si fiican u ilaalisid in magaalada dhexbartamaheeda nimankaas maalin cad laga qaato wax ka daba galay waayo wax la hadlay waayo oo iska tagaan oo dadkaas doorka la galo والله ومد أن زائد أو ماذا مد أن زائد ماذا نم والبعض منها نم والموت أو ماذا لكن وحاف عن ذاتك أذيك مرتدك إن ما نم والبعض قدر السوق والسكوريتي في عن أساسي سفي عن الله إلى اليوم أنت كل جوان سفي عد أوجناجس ني ورث عدد عن الشري واتو أدي فولحن أورنتي dadkii hataa ka shaqeeyna meelaha gobolada meelaha kale ka yimaada wadanka booliiska kale halkaas shaqo u yimaaday in macna ay kalsooni darre ay ka sii qaadaan amniga oo magaalada ay ka sii cararaan xigtooda joogta maadaama aan ognahay in dhacdooyin fara badan oo noocaas ah magaalada ay ka dhacaan oo ay ka dhaceen macna sanadii hore la soo dhaafay oo dad badan oo ajnabi ah oo isku jira Kenyaati iyo qaybo kale oo macallimiin ahaa dhaqtar ahaa iyo si kale ugu shaqeynaya magaalada ay ka faarujeen runtii dhaqtariintan waxay ognahay in sanadka hore July 2018 la keenay ayadoo loo keenay in macna meesha dhaqtar la'aan ay ka jirtay dhaqtariinta joogeen ay ka carareen falal amni oo magaalada ka dhacay awgeed marka falalkaas amni oo ku soo laabtay deegaankaas ama Mandheera County dhamaan yaad isleedahay mas'uuliyadeeda way qaadaysaa dawladda county-ga mise dawladda national government-ga نيو هرت خير لو كسي وركت شيكتي سؤال دوزي سؤال في عنواعي مسؤولية waxaa qaaday dadka dawladda hoose oo mas'uuliyiinta dawladda hoose ay qayb ka qaadanayo waayo national government dawladda hoose waxa uu deeqday taqaatiir wadamo kale ay ka keentay oo in dadka meesha bulshada meesha joogta caafimaadkooda lagu ogaado oo alxamdulillah dhibaatada ku dhacday oo ugu bagtaan haddana meeshaas waxa ka baxay maadaama mar hore ay taqaatiir ay haysanin haddana labadii joogtay laga qaatay waxa imaanaysa meeshaas dhibaato badan oo dadkii bulshada ay ku rafaadi doonaan taasna waxa keentay in nimankii martada ahaa joogay la siin waayo ilaaliye fiican oo waqti siyo si fiican nabadgelyada u ilaaliye ay waayaan taasna mas'uuliyadaas waxa qaadaysa dawladda hoose ay qaadayso horta anigana hadii aan ku darsado runtii xoogaa waan kaftameynaa si warays ahaan macna aan war ku qaadina laakiin waan kaftameynaa maadaama channelku san ahaan wax war ah oo inta aysan ahaan
مسؤولك من جبنا من دار على الروا runtii 5 sano hore uu joogay 5 sano hadda socotana uu jooga dhacdooyin kor runtii wuxuu ka ahay goobjoog ku soo ahay kuwan hadda socdana goobjoog uu ka yahay iyo madaxda dhamaano mas'uul waxaan macnaha mas'uul daraa in falal isku mid ah ay ku soo noqdaan oo wax talaabasan oo aadan ka qaadin waxaa la rabaa waxaan amal security-gan ama amni xumadan in macnaha alro uu talaabo xoog leh uu qaado oo sameeyo macnaha in dhaqaaq weyn oo sameeyo la tashado dadka amniga ku howle oo magaalada joogo in la tashado in macnaha habeenka magaaladaas amnigeeda kaafi lagu sameeyo amnigeeda macnaha ciidamo lagu daadiyo in macnaha maalinka taa laga warqabo magaalada xuduudka askara joogta la leeyahay waa la iska soo galaa sida rabaan loogu baxaa taas marka waa wax ka shafaad aad iyo aad u weyn waay oo midaas aan wax ka dhaho xuduudka horta waa weyn yahay waxaa loo baahan yahay ciidamo ku sameeyso habeenkii ilaaliso maalintii ilaaliso xuduudkaas dhan la socota dhaqdhaqaaqiis in magaalada centerkeeda gaari laga wato oo xuduudka laga baxo oo gaari weyn hal qof oo dhumana ahaan oo gaari weyn la marinayo meeshii la marinayo waa la yaqaanaa macnaha dhulkaas dad baa jooga waa la walgaranayaa halkii la marinayo ama gaarigaas uu mar lahaa waa la yaqaanaa marka magaaladaas centerkeeda ninkaas dadkaas laga qaaday meel la maraa jirto dhulkaas waa la garanayaa nin walba waa qana national dawladda hoos waxa laga rabay markii nimankaas lagu tagay oo gaarigaas meesha inta weyn oo baxay in security ay joogto xuduudkaas oo wax allaale waxay dhacdo magaalada ka dhacda si fudud ay magaaladan ugu sanbixin marka meeshaas waxa keenaysa in dhanka amniga iyo maamulka meesha jooga ay si fiican u shaqeynayaan xuduudka oo san ninkii rabana ka soo galay ninkii rabana uu ka baxaya runtii horta sax waaye meeshaas gaab badan ka jiro mas'uuliyadda macnaha wax qaadanaya malahan marka laga soo gudbo intaas runtii horta dhacdadan shil intaysan dhicin ka hor ninka macnaha u weyn amniga waqooyi bari Kenya something break macnaha al raba say darad wada joogeen waxay ka hadlayeen 5 sano soo socoto si macnaha amniga wadanka amniga oo county macnaha lagu sameyn lahaa laakiin ma aysan dhicin mar hal maalin kadib in falkan uu ka dhaco wax aad iyo aad u qolxun marka isla maanta hadana waxa dhacday in al raba maanta oo iyadoo macnaha dadka ay ka mulugsan yihiin dhaqtar intay ka baxeen hadana waxba ka sidana xal magaalada waa la soo weeraray maqlay oo dhaqtar la shaqeynaya Soomaali oo dhaqtarintaas la qaashay la afduub la shaqeynaya in la soo riyaaday laakiin nasiib daro loo waayay marka ayadoo waxaas falalkaas ay magaalada ay ka dhacayaan la rabay step-ka xiga marka la rabay waxay ahayd in al raba maadaama asaga mas'uulku yahay in macnaha laamaha amniga uu meeting degdeg ah u leeyahay si macnaha looga hadlo arrimaha taagan markaas si loo xalin lahayd laakiin waxaaba la yaab leh in la iska hilmaamay dhaqtariinta la iska hilmaamay oo al raba maanta dadka ayadoo dawlad iyo dadka ay ka murugaysiin dhaqtariinta meel aan lagu hubin al raba inuu maanta iska barnaamijka iska galay وما أنا أنت قيبنا واحد قال لو روح مال واحد لو روح مال كنت أنت قيبنت حلي على عم بحنين على الربان وحوشة إنه أنت حلي على قيبي هذا اللهم بحن سواء حتى مرحلة تاجن قل كبح مركز كده أنت هذا قيب صح مدن أنت قيبنت أنا عن مد كحجله صح هرت أنت قيبنت أنا وحاجة لو ويند إن أمن اللي هلا تك أي واحد برش أدران dadka ay caafimaadkooda raadsadaan dadka ay jidkooda nabad ku maraan markaas nin walba meeshaas uu joogo waxa uu raadsan karaa laakiin qof hadiisan ridis ka bixi karno oo cunto raadsan karin caafimaad uu aadi karno oo xanuunsan yahay waxbarasho uu aadi karno meesha uu ku xiran yahay amni hadaasan jirin meesha nolosha kale waa tagtay oo meesha nolol kama jirto marka aniga waxa igala weynaay wax bixintaas in amniga dadka la sugo kadibna step kale loo galo tan kale tumid aan la yaabsanahay waxa waay in ay tacsiib ku taasho oo caalamka adduunka indhiisa kugu soo jeedaan oo lagu leeyahay halkaas baa wax ka dhaceen mas'uulka meesha joogina aad tahay adigana aad maartay shaqadaada kale iska gashiyo danti ku macnaha adduunweynaha wuxuu danaynahay labadaas nin oo adiga martida ku aad dhibka loo geystiyo danaynaya in taas adduunweynaha tusiso meeshaas dhibka ka dhacay aad u joogtay inaad ku howlan tahay marka maadaama aad shaqo kale iska gashay macnaha waxa lama tahay dadkaas marran daryeel ma ilahan haddana daryeel ma ninka ma daryeelahay bari kuwa kale imaadana ama dhaqaatiirka kale oo loo soo dirana noocaas ay noqon doonaan
meeshaas waxaa kasoo bixaysa in dadkaas ay daawo waayaan caafimaad waayaan dhakhaatiirta ku filneedna ay waayaan marka cuntada laga soo gudbo cuntada horta xilliga aan loo baahnayn xilliga loo baahnay al rabo in cunto qaybiyo waa xilliga dadka abaarta haysta laakiin hadda xoogaa roob yaraada in kastoo saas uusan u xoogayn xilliga abaarta waxay ahayd xilligii barnaamij ka roo u socday waana socdaa in alborkas markuu isqaban waayo in meeshaas laga dhiso uu isqaban waayo uu arrimo kale hadda uu ku howlgalay oo maya al raba horta wuu fashilin yahay xilliga hadda cunto qaybinta xilligaas al rabay xilliga dadka ay u baahnaayeen in cunto aad siiso abaar ay ku jireen maadan siinin oo barnaamij kale ku mashquulisay oo ka roo airport liiraad si runtii barnaamijka soo marka dambana ka fashilmay sida uu rabay u dhici waay markaas waa fashil aad iyo aad weyn hadda mid aan kursade maadaama dadkii meesha kasoo jeeday aad tahay adiga naftaada lacagta alborka waxba ka soo gaaray wali imaad sheegina marka dib male taas si saaxiibtimo uu hadli doona waa sugnahay adiga xibno weyn baa meesha ku joogay oo lacagta ka soo wax ka soo gaarsanay ka roo runtii airport ka roo wali meel uu ku dambeey ilaa hadda lama wasalkiis lama soo sal gaarin waxaas lama soo sal gaarin waa laga kala aamusay ilaa hadda meel uu ku dambeey لما هو برنامجكاس كل لعبتيس إن معنا لو كل أنا واحد يقوم سوق جارم واحد يوشين ما لعبتها سواء ماتي مال باي مرتين ماشي أي مرتين كل بوم وصوب بيعدين دونتا لكن واحد يلعب إن تدوينها وبوق وبطيء ولا عمزي تحسنا مال سعريه والريد لوجو تجيو مال إكسب بعدون تلعبها برنامج كان رنتي من نرى دبتون بدنا كتير زايد وقتي إنه كل على وراح ده زايد وقتي إنه غير مركا برنامج كان حال كان كومسو كل كر زايد وقدام بين مسؤولين ترى من دارا يو بولشة ترى من دارا محاو باقله باقله هرت بولشة محاو باقله هاي dadka idinka aad doorateen oo maartay mas'uul ka dhigateen مسؤول كتير idinka mas'uul ka dhigateen oo meesha geysteen waxa la rabaa maalin habeen inaad la xisaabtantaan booqi qala intaad qaataan intaas wixii ku leen aad dhaxdaan مسؤولينta meesha ka talayso waxaan kula tan lahayn maadaama dadka reer Mandheera dadka idinka aad soo doortay oo meesha in keenay ay yihiin nolosha adduunyada hal habeen iyo hal maalin ay ahaan doona maalin kastana maalin kalena wax aad u baahan doontaan yaa soo noqon kursi bis ama xildhibaan inaad noqotid ama governor inaad noqotid ama meesha aad kursi ka soo raadsatid bis aan ahayn markaad kursigaad ka degtid dadkaada iyo ilmahaada iyo reerkaada aad ku laabanaysaa markaad dadka tolka u baahan tahay lacagna nin walba jeebkiisa kuma jiraysa hal maalin haddaad haysa halka maalin kala way kaa tegaysaa adduunyada waxaan u xun inaad lacag badan aad baratid maalinta dambe lacagta ay ka dhamaato meel aad qabato aad waysa adduunyada waa taas ugu xun birina dadkaadii aad hoos maanayso leedahay maadaama shalay aan xumay haddana cunto isii ama wax isii ama garab in ka raba haddana aad dhii doontid waxaan rabaa mas'uuliyiintaas inay isxilqaamaan dadkooda si wanaagsan ugu shaqeeyaan wixii allaale wixii ka hor istaagayo ay dhinaca iskiin boosan ayagana ay isku mashquulin oo dadka ay wax qabadkooda ay ku mashquulaan amnigana ay si fiican uga qayb qaataan runtii horta amniga dawladda kale ay mas'uul karto bulshadan waxaa la rabaa in ay amniga sugidiisa ay kala qayb qaadato dawladda al rooba iyo mas'uuliyiinta kale waxaan ugu baaqaynaa in macnaha bulshada ayagana ay la shaqeeyaan waan ogahay xilliyada falalka caawna markay dhacaan in dawladda ay ciidamada dawladda ay ku kacayeen falal xun oo ka dhan ah bulshada meesha ku nool taasoo marka keeni karto in macnaha wala shaqeyn wanaagsan aysan ka dhex dhicin bulshada iyo ciidanka marka bulshada waxaan leeyahay in si dhow ay ciidanka ula shaqeeyaan si magaalada amnigeeda ayagana ay qayb ugu qaataan runtii waag hore waxay ahayd waxbarashada in macnaha macallimiin wax la dilo oo waxbarashada meesha ay hoos u dhacdo haddana caafimaadka runtii loo soo dhigtay dhakhtarinta iyo waxyaabo kale loo soo dhigtay wax xiga anaga ma naqaano laakiin waxaan leenahay bulshada xaaladeeda way sii liidanaysaa haddii caafimaad bulshada aysan haysanin oo dhakhtarin wanaagsan aysan haysanin haddii waxbarashana aysan haysanin meeshaas marka bulshada nolosheeda waxba mataraysa marka amniga waa muhiim waa mid laanta koowaad oo macnaha bulshada ay ku noolaanayso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.